بسم الله الحمد لله وصلى على محمد وحرمتها اساسي خاتمه مقالة لاسعانود بشي فبراير 10 2025 anagoo ah majoratiga xildhibaanada golaha baarlamaanka SSC Khaatumo waxaanu halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed ku aadan wixii maanta ka dhacay baarlamaanka SSC Khaatumo qodobka koowaad ee war saxaafadeedka golaha baarlamaanka waxaa hor yaalay hindise xeer dhisida gudida diyaarinta dastuurka nasiib darro waxaa dhacday in gudoomiyaha baarlamaanku mudane jaamac yaasiin warsame uu hor istaagay ku sameeyay hindise sharciyeedka la meel marinayo isaga iyo dhowr xildhibaan golaha kamid ah qodobkiisa labaad mar labaad hogaamiyaha ayaa codsi u soo gudbiyay golaha baarlamaanka in mudnaanta la siiyo meel marinta hindisahaas mar saddexaad qodobkiisa saddexaad mar saddexaad majoratiga xildhibaanada ayaa guddoonka u gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan in xeerkaas golaha la hor keeno kadibna laga doodo oo la meel mariyo oo aan faahfaahin ku jirin sidoo kale gudoomiyaha wuxuu xiray fadhigii golaha iyadoo ay hor yaalaan laba hawlood oo kala ah ansixinta hanti dhowraha guud iyo akhrinta xeerka shaqaalaha rayidka ah oo xildhibaanadu diyaar u ahaayeen waxaanuna halkaa ka cadaynaynaa in axdiga SSC Khaatumo qodobkiisa 6aad farqada 8aad iyo qodobkiisa 18aad farqada 3aad iyo qodobo kala dhigayaan in maamulka ku meelgaadhka ahi ka shaqeeyo dhammaan hawlaha mudnaanta iyo hortebinta u leh dawlad dhiska iyo ka bixidda xilliga ku meelgaadhka ah si uusan u dhicin firaaq siyaasi ah marka uu dhamaado xilliga ku meelgaadhka qodobka 6aad waxaanu dadweynaha SSC Khaatumo u xaqiijinaynaa in tallaabada uu qaaday gudoomiyaha ay tahay jabin toos ah oo ku sameeyay xeerka qodobka 7aad baarlamaanka SSC Khaatumo ayaa iska leh hawlaha sharci dejin ee maamulka shuruucdana waxa ugu muhiimsan dastuurka dadweynaha SSC Khaatumo waxaanu ugu ballan qaadaynaa in la qori doono dastuurka lana dhamaystiri doono haddii la haydmo nidaamka dawladnimada iyo hindimihimilada taariikhiga ah ee SSC Khaatumo waxaan sidoo kale cadaynayaa inuusan gudoomiyuhu la tashan shirgudoonkii kale gudoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee uu qaatay go'aan isaga khaas u ah wabillahi tawfiiq waxa u bannaan ciddii haddaba hadla soo kale oo caliyo